بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى وحين قادرنا قيبتا سالي طبنات برنامجك أقون جود إن شاء الله تعالى. سؤاله إنه وحي أولحين دونان بقول أفري أفرتن إلى بقول إيو كونتون. haddaba su-aasha 140 afraad ayaa ah shay kumuu ahaa nebigii uu Allah awoodda u siiyey in uu soo nooleeyo dadka dhintay inuu soo nooleeyo nebigu uu Allah awoodda u siiyey magaciisu wuxuu noqonayaa waa Nabi Ciise calayhi salaam. nebigaas magaciisu waa Nabi Ciise calayhi salaam. su-aasha 145aad ayaa ah shay magaca nebi laga soo saaray waddan Afrikaan ah iyo magaca waddankaas. jawaabtu waxay noqon doontaa waa Nabi Muuse calayhi salaam waxaana laga soo saaray waddanka Masar. haddaba su-aasha xigta ee su-aasha 146 weeye sheeg saxaabigii qoday godkii ama qabrigii lagu aasay nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee magaciisa. haddaba saxaabiga magaciisa waxaa la oran jiray ama loo aqoonayba Abu Dalha Sayd bin Sahal. su-aasha xigta waa su-aasha 147aad kumuu ahaa saxaabigii loo aqoon jiray tarjumaankii qur'aanka kariimka. haddaba su-aashu ama jawaabtu aan dhahe waxay noqon doontaa insha allahu tacaala saxaabigaasi waxaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi ibn al-Cabbaas radiyallahu canhu. haddaba su-aasha xigta ayaa su-aasha 148aad sheeg saxaabigii ay shinnidu meydkiisa dabasho. saxaabi waxaa jira markii geeriyooday dagaal buu ku jiray markuu geeriyooday shinni baa meydkiisa dabashay. saxaabiga magaciisa laga doonayaa magaciisa wuxuu noqonayaa waa Caasim bin Thabit. haddaba su-aasha 149aad kumuu ahaa saxaabigii hogaaminayay dagaalkii Qaadisiya. magaca saxaabigii hogaaminayay dagaalkii Qaadisiya ayaa laga doonayay. jawaabtu waxay noqon doontaa saxaabigaasi wuxuu ahaa Sacad bin Abi Waqaas radiyallahu canhu. su-aashan inagu dambaysa waa su-aasha 150aad sheeg saxaabigii ay malaa'igtu dhaqday midkiisa. saxaabiga ay malaa'igtu dhaqday midkiisa ayaa laga doonayaa. jawaabtu waxay noqon doontaa saxaabigaasi waa Xandala ibn Abi Caamir radiyallahu canhu. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaa insha allahu tacaala ee la soco qaybta xigta.